filimkan maanta wuxuu ku bilaabmayaa Torreira lagu magacaabo Jigaara Ku waana wiil dhigta iskuul dugsi sare ah wuxuuna aad ugu fiican yahay sportiga wiilasha dhammaan iskuulka way ka maseeraan halka gabdhahan ay aad u jecel yihiin sidoo kale waxa baranayna tilshidin lagu magacaabo Maya waxaan arkaynaa iyadoo fiirinaysa crashkeed si qarsoodiina u eegayso halka Jigaara uu almeeteenayo taageerihiisa u badnaa gabdhahan ay aad ugu sacbinayaan Maya sidoo kale way dhool cadeynaysaa laakiin asiga uma dhool cadeynayso laakiin waxay iskadgaad ku hayso wiil kale oo lagu magacaabo Yamada sidoo kale wiilkan iskuulka caan ayuu ka yahay maadaama gabdhaha qaar ay aad u jecel yihiin muuqaalkiisa waxaan halkan sidoo kale ka ogaanaynaa Maya inay crash wiilkan ku heed hal sano iyo bar markaan Maya way ka badbadatay waxay doonaysaa inay jecelkeed u sheegato wiilkani laakiin ugu dambeyn markay u sheegato wiilka wajigiisa ayuu bedelay kadibna uu ka cararayaa goobta taasoo gabadhan ku abuuraysa murug iyo qalbi jab dabeedna library ay iska jeefanaysaa waxayna halkan ka ogaanaysaa inuu wiilkii post soo dhigay internetka kadibna markay akhriso waxay halkan ka ogaanaysaa inuu ku soo inay daba dhagatay asiga khaatin uu ka tagan yahay arrinkaas oo aad ugu careysiinaya Maya kadibna blog ay ku qabanaysaa si walba ah Jigaara oo goobta ka dhawaayo library kula jiray ayaa arrinkeeda maqlay kadibna uu imaanayo iyadana kama inahayn wiilkan inuu agteeda soo fariisto kadibna wuxuu diinaya sababta sidaan ugu murugaysan tahay wayna u sheegaysaa waxaan ku leedahay wiil ayaan jeclaa laakiin hadda ayaan ogaad inuu asigana i jeclayn jacayl oo dhamna waa kan yijib hadda laga bilaabay ay ku leedahay kadibna wuxuu ku leeyahay dhool caday waxaasna iska hilmaam laakiin idoo u jawaabin ayay isaga tagaysaa goobta subaxdii xigtay Maya saaxiibkeed Tezuka ayaa soo fiirinaya kadibna wuxuu qiyaasayaa sababta uu murugaysan tahay wuxuuna ku leeyahay Yamada ayaa kugu daadiyay Soomaha waxaan halka ka dareemayaa Tezuka inuu arrinkan ku faraxsan yahay maadaama ilaa yarantiis gabadhan u jeclaa iskuulka markay ka soo baxdo Maya ayaa tareenka waxay ku arkaysaa Jigaara kadibna wuxuu weydiinayaa sababta inuu u dhool cadaynin ilaa haatan maxaa yeelay mar walba tareenka la soo raacay wuxuu arki jiray iyadoo dhool cadaynayso oo faraxsan laakiin markaan wuxuu dareemayaa inay aad u murugaysan tahay kadibna Maya cil dartiis ayaa ilin u imaanayso Jigaara arrinkeeda ku xumaanaya kadibna wuxuu ku leeyahay waa inay aniga jacayl been ila jishaa sida darteed ee ku hilmaami kartaa kaliya jacaylka ninkaasi waana habka ugu wanaagsan ee aan ku caawi karo markaan waxaan arkaynaa Maya gurigeeda joogto kadibna ka fikiraysa arrinkii waxayna list ka diyaarinaysaa qaabkii u dhaqmi lahaayeen macayaati jacaylka ay u dhili lahaayeen waxaan halka ka dareemaynaa Maya inay bilowday in hore inay iska hilmaantoba subaxdii xigta waxaan arkaynaa Maya iyo Jigaara isla fadhiyo kadibna uu akhrinayo warqadii ay soo diyaarisay wuxuuna ka arkayaa meesha inta mar uu soo daba raaci karo iyo inta mar uu la hadli karo inay meesha ku qortay wuuna la yaabaa laakiin uu iska ogolaanayaa maadaama qorshihiisa uu yahay gabadhan inuu caawiyo si ay ku hilmaanto ninkii hore maalintii xigta waxaan arkaynaa Maya oo ciyaartii bilowday kadibna waxay saameynaysaa maalintii inta mar ay is arkaan iyo inta mar ay tareenka isla raacaan iyo fogaanta uu jira xataa intay waxaas xisaaminaysa ayuu wuxuu ku leeyahay ma soo daba raacaysa hal mar kadibna intay soo boday ku leedahay Maya ciyaarta hadda noo bilaabatay kadibna way soo raacayaan kadibna wuxuuna ku leeyahay caawinka qaab kale ku caawi kara ayaa jirto ayadana way weydiinaysaa waa sidee ay ku leedahay wuxuuna ku leeyahay waa inaan si fiican iska bara waxaan ahay waxaan jeclahay waxaan necbaaba marka si fiican ay baratana ciyaarteena si fiican ay u soo wanaagsananaysaa Mayana way ka ogolaanaysaa kadibna wuxuu u sheegay inuu subaxdii ordo inay ku soo biirto asiga orodkiisa macnaha isla alamiitayaan subaxdii xigtay ay ka soo kacaysaa kadibna alamiitad ay bilaabaysaa asiga soo daba raacaysaa kadibna muddo markay cararto lugaha ay ka dhaawacmaysaa oo iska fadhiisanaysaa markaan waxaan arkaynaa iyadoo iskuulka imaanaysa oo hintinayso maadaama kubihii wadatay ay lugaha ka dhaawaceen laakiin nasiib wanaag waxay la kulmaysaa Tezuka oo saaxiibkeed ah kadibna caawinayo iskuulka soo gelinayo iskuulka markay soo gashaan waxay arkaysaa gabdhihii iskuulka dham oo hadiyo u wada keenayaan Jigaara kadibna waxay isleeysaa iyaa gabar xabada caadiin ayaa taabe oo wiilka gabdhaha dham ka daba dhacaan ayaa adiga xaggaada soo fiirinayo oo raggaada ka fikirayo kadibna kursiga oo fiirinaysa ay fiirinaysaa iyadoo dhool cadaynayso Tezuka isla markii uu dareemayaa wuxuuna ku leeyahay haddana ma Jigaara ayaa jeclaatay Maya ma jeclayeen leedahay xiisadii kadib Maya markii ugu horeysay ayuu soo eedaysaa ciyaarta uu ka qayb galayay Jigaara isla markaas ayaa kubadda haadaysa wajiga u dhacayso isla markaana Jigaara ayaa imaanay kadibna uu soo qaadaya isla markaas ayuu weydiinayaa sababta uu tinaysa subaxnimadii kadibna lugteeda ayuu fiirinaya wuxuuna arkaa sharootooyin ku dhigan wuxuuna weydiinayaa sababta lugteeda saan u dhaawacay halka Maya ay ku leedahay markii ugu horeysay aan qof koobiyay waay adiga ayaan ku koobiyay maadaama aan orday ayna ahayd markii ugu horeysay aan kobahan ku ordo sidan ayay dhaawaceen ayay ku leedahay kadibna Jigaara ayay waxay ku leedahay waxa jeclaaleed inaan ku sameeyo ma jiraan markaas ayuu cankeed qabanaya asigoo dhahay inaan sidan sameeyo ayaan jeclahay qof aan aniga ahayn inay cankan qabato ma doonayo Maya hadalkaas aad ay ugu helaysaa oo labadoona waxa muddo isku soo dhawaanayaan oo dareen jecel galayo habeenkii Maya message ay soo dhacay oo soo dir Jigaara asigoo ku balansanayo kadibna subaxdii way soo baxaysaa iyadoo aadayso meesha ku bilaamiyay waxayna u imaanaysaa asigoo ku sugay tembalka agtiisa Maya crashkeeda inay tambal soo wada boqdaan listiga gameka ay ku jirtay kadibna halkaas ay iska wada raacayaan si waqti qurux badan u soo wada qaataan labadooda maalintaasi kadibna iyagu dukaan joogaya Maya waxay arkaysaa dool ay ka heshay kadibna markay gada maagtay waxay ogaanaysaa in laba la isku gaday sida ay iska daynaysaa kadibna way israacayaan asigoo u sheekeynayo noloshiisa waxaan u sheegayaa gabar 5 jir inay la dhalatay kadibna wuxuu siinayaa doolkii ay ka heshay maadaama asiga uu soo gaday waxaan ku leeyahay igu soo xasuusay diyadani aad ayna ugu farxaysaa arrinkan uu sameeyay intaas kaliya uu sameeyay gacanteeda intuu qabto iyo shuminayaa
ayadana markaa way isku dhaxyaacaysaa waxay sameeysan ma garanayso cabaar kadib Jigaara oo gurigiisa jooga ayaa walaashiis u imaanayso kadibna waxay ogaanaysaa xaalad farxad inuu ku jiro waxayna weydiinaysaa waxa sidaan dhab ugu farxiyay wuxuu sheegay inuu saaxiib cusub samaystay oo aad ugu farxiyay saaxiibkaani subaxdii xigta waxa arkaynaa Maya oo aad u faraxsan iskuulka imaanaysa kadibna doolka fiirinayso maadaama bombilaha Jigaara uu siiyay laakiin farxadeedu waxa soo gabagabeynay markii uu Yamada intuu hor imaado oo kadibna uu shaqtaysto gabadhii foolxumada badan ku dhaho asaga uu raacsiinay midaan camal ayaan teena hortimaad ay waxay noo sheeganaysaa jacayl waxaan camal ma jeclaanaa Maya hadallada qalafsan ninkan ka soo baxay markay maqash aad ay u xumaanaysaa isla markaas ay Jigaara u imaanayo Maya oo yar garabsiinaya asagoo Yamada iyo saaxiibkiisaba isla goobtaas ku bahdilayo wayna isaga cararayaan goobta cabaar kadib waxaan arkaynaa Maya oo saaxiibteeda Jika la fadhido kadibna la talinayso waxayna ku leedahay waxaan ciyaar waay run ha u qaadanin oo intuu jacaylku galay mar labaad qalbiga ka jabin sidii kii hor camal maadaama wiilkan wiil caan u yahay isla markaas waxaan arkaynaa Maya inay taladii qaadatay kadibna ay bilaabayso inay ninkan isaga fogaato laakiin asigu wuu la yaaban yahay oo sababtay uu fogaanayso ilaa hadda ma xaqiiqsano mana garanayo markaas ayuu wuxuu ugu maanayaa library idoo fadhido waxaan isku dayaa inuu la hadlo isla markaasna uu istaagaysaa wuuna celinaya isla markaas ayaa goobta waxa soo gaaray gabar la yiraahdo Miyu waxayna Jigaara ku leedahay si khaas ayaan doonayaa inaan kula hadlo waxaan halkan ka ogaanaynaa gabadhan inay jeceshahay ninkaani muddo dheerna ay jecleed cabaar kadib ayuu Jigaara soo laabanaya kadibna Maya ayuu wuxuu weydiinayaa sababtay uu fogaanayso kadibna wuxuu ku leeyahay halkan miyaan ku joojinaa ciyaartii jacaylka laakiin Maya uma story ayaa ku dhigayso isla markaas ay si ka maqaal qad isugu daadinaysaa Jigaara ayaa jaakadiisa deeminaya markaasi markay ka soo tagto ay Tasuuka la kulmaysaa kadibna wuxuu arkayaa inay jaakadii Jigaara wadato isla markaasna uu maseerayaa wuxuuna halka ka dareemayaa Janiska oo gabadhan u haysto inuu aad u yar yahay isla markaasna wuxuu bilaabayaa inuu sheegto jacaylkiisa oo gabadhan u qabo laakiin waxa ka qasaya goobta soo gaaray Jigaara Maya ay inta qoobto iyo wuxuu ku leeyahay gabadhan maxbadeydii ee isaga fogaw saaxiib Tasuuka iyo Jigaarana aad ay si xum ay isku eegayaan intayna murmina Tasuuka ayaa goobta isaga tagaayo isla markaas ayay Maya jaakadiisa siinaysaa Jigaara ayadoo markaa ka fogaanaysa wax dareena inuu galo mar labaad isla markaas way ka soo tagaysaa kadibna waxay soo galaysaa meesha qalajista dharkeed u qalajinaysay laakiin Jigaara ka harimay oo ku soo dabagalaya kadibna wuxuu u dhiibayaa list cusub oo ciyaarta jacaylka uu sameeyay wuxuuna halkan ka tusayaa wali inuu doonayo garabkeeda inuu ahado gabadhaani wuxuuna ku leeyahay qalbigaada jab haddii aad doonayso inaad daaweyso waa in aniga ii timaadaa laakiin Maya uma jawaabayso oo goobta isaga tagaysaa laakiin Jigaara gadaal ayuu hab ka siinaya asigoo u sheeganaya jacaylkiisa mar kale iyadoo u jawaabin ayay goobta isaga tagaysaa ay ka cararaysaa ayada laftigeeda markaa waxay dareemaysaa inay asiga la jeceshahay laakiin ma garanayso waxay samayso oo baqdin ayaa ku jirto markaan oo jacaylkii ka baqday inuu soo afjarmo kadibna qalbigeeda u jabo isla markaas ay waxay u imaanaysaa saaxiibteeda Jika arrinkii dhacay inuu u sheekeynaysaa waxayna u sheegaysaa saaxiibteeda si walba ahaataba inay qalbigeeda wax uu sheegay raacdo waxay ku farxaysan ay samaysato waxayna sidoo kale ugu sheekeynaysaa Tasuuka iyo Jigaara saaxiibtinimada ka dhaxaysay waxaan halkan ka ogaanaynaa inay isku koox ahaayeen saaxiibana ahaayeen isfaham darri soo dhax kala gashanay sida darteed u kala tageen maalintii xigta waxaan arkaynaa Tasuuka oo soo daba raacay Jigaara kadibna u sheegay inuu maalintii dhaweyd oo gabadhii habsiiyay Maya ahayd asigoo halka ugu dan leh inuu ka maseersiiyo isla markaas ayaa Jigaara wuxuu qabanayaa Maya wuxuuna u sheegayaa in nin kale inuu dhawaanin maadaama hadda laga bilaabay saaxiibtiisa tahay isla markaasna uu shuminayaa isaga uu cadeynayo inay xabadiisa tahay laakiin ayaga lama socon inay gabdhaha iskuulka dhigtaan ay fiirinayeen Maya markaan iyadoo ka cabsanaysa inay dhibaato u timaado ay goobta isaga cararaysa kadibna iyadoo iskuulka u cararaysa ay waxay ku saganaysaa inay shil gasho laakiin nasiib wanaag Jigaara ayaa soo boodayo kadibna badbaadinayo sida darteed ayuu ugu dhaawacmaya Jigaara isbitaal ayaan la dhigayaa Maya arrinka uu saameynaya oo aad ay u xumaanaysaa eedda dhamna dusha ay iska saaraysaa oo iyadii ka dambeysay ay iska dhigaysaa waxayna bilaabaysaa inay u duceyso si uu soo caafimaado nasiib wanaag Jigaara uu soo reysanaya isbitaalkuna ku soo baxaya ugu dambeyn sawirkii maalinta laga qaaday markuu shuminaya ayaa viral noqonayo social media ku faafayo arrinkaasuna ka xanaajinaya gabdhihii aad u jeclaayeen Jigaara waxayna bilaabayaan comment ku dhiglayaashii commentigoodii ayagoo ku soo qoraya eraysida way falxun tahay uma qalanto iyo waxa Maya Jigaara saaxiibtiisa commentiyadaas oo aad ugu xumaanayso Maya laakiin beddelkeed intay timaado tartankii meesha ku lagu qabanayay oo orodka ay Jigaara magaciisa ku qaylinaysaa ayadoo markaa kululeysanayso gabdhihii comment ku dhiglayaasha kana maseersiinayso markooda waxayna bilaabayaan markaan waxay ku qorayeen inay wajiga ka saaraan ee aflagaadeeyaan laakiin iyada dhag jalaq u sameeyso oo meeshada ay ka qaylinaysaa ayadoo dhiirigelinaysa Jigaara inuu guuleysto Jigaarana markuu arko dhiirigelin ayuu ka qaadaya kadibna tartankii ayuu sida ugu guuleysanaya orodka waa marka la leeyahay xariif saaxiibtiisa garab taagan tahay waa libaax laakiin si walba ahaato Maya markaan cadawgeeda ayaa iskuulka ku batay waxayna u soo dhuminaysaa library-ga si ay ugu dhuumato Jigaarana isla markaas uu dareemayaa wuuna soo cararaya library-ga uu soo cararaya asooga xaggeeda soo aadayo kadibna markuu u imaado library-ga wuxuu u sheegayaa jacaylkiisa waqti dheer uu qabay wuxuuna u sheegayaa jacaylkiisa inuu hadda soo bilaaban oo muddo dheer u jeclaa sida Yamada u daba raaci jirtay kaligeed u jecleedna oo asiga u daba raaci jiray oo asiga jeclaa meel fogna ka eega ka jiray maadaama uu aad u jeclaa gabadhaana markaan way qaranaysaa idan jacaylka ay u qabto asiga Jigaara kadibna sida ay hab isku siinayaan jacaylkooda sida uu ku midoobayaa
gabadhiina sida ay special gaal ku noqotay oo wiilkii iskuulka ugu caansanaa jeclaaday filimkan halkan ay ku soo gabagabanayaa fadlan muuqaalka dadka hesha like no saar hadaan ugu cusubtaana subscribe wixii ra'yi ka qabtona halkan nagu reeb waa inoo muuqaal kale oo kan ka xiisaab badan mac salaam